السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قيمة بدن كسو دوادا مقال قيمة بدن فضلا هدياتكو عصوبتها الجنة كان سبسكرايب نوصار مقال كان لايك صار قيبتو هوسي كومنتيس كان وحاد إنو لو ودايك كتاوحي فكري فعلا يديري قلنبا مهتسني maanta muuqaalkeena waxaan oga hadli doonaa ilaa iyo dhowr iyo 10 siyaabood aad ku garan karto qofka ku jecel ma ku fikirtay inuu qofku jecel yahay isla markaana ma ku sheegi waayo inuu ku jecel yahay adigoo dareemay inuu ku jecel yahay haddii aad oga shakisan tahay qofkaas inuu ku jecel yahay waxaad ku ogaan kartaa haddii uu leeyahay dhowr iyo 10 siyaabo aan sheegi rabo وحقيقة قفكاس وكجعليها دوري طبعا كان سيابود وحيكو عدينيان إنه قفكاس كجعليها هدوسن أبودين حتى إنه كو شيغو يسوون أفكيسا كاغا شيغين أياد كو أغان كرتا دوري طبعا كان سيابود هدي أوليهاي وحقيقة وكجعليها يعني بلاونو دوري طبعا كان سيابود الكوبان eegida ama fiirinta waa arin ay daraasaad ku sameeyeen aqoon-yahanada cilmi nafsiga tani waa calaamad aan hadal ahayn oo micno badan sameyn karta muujinaysa in uu qofka dareen ku qabo u fiirso qofka ku jecel marnaba si toos ah kuma eegi karo markaad ku qabato isagoo ku eegaya kuma sii eegi karo taasina waa calaamad ka mid ah jacaylka aqoon-yahanada cilmi nafsiga ayaa ku sheegay arrinkan in qofka mar walba jecel in uu ku eego uu yahay qof ku jecel isla markaana aanan ku sheegi karin number 2 ma ogolo in xumaantaada la sheego mar walba waxa uu jecel yahay in wanaagaaga la sheego dadka ku nacab ayuu isku dayaa in uu ku jeclaysiiyo isagoo wanaagaaga ooga sheekeynaya mana u dulqaadan karo xumaantaada inuu ka maqlo dadka kale waa qof jecel wanaagaaga in laga sheekeeyo mar walba number 3 waa dhiirigeliyahaaga qaaska ah waa uu ku dhiirigeliyaa had iyo jeer haddii aad ku dareysato waa uu ku dhiirigeliyaa isagoo isku dayaya in uu guuldaradaada ku ilowsiiyo dhiirigelintaada mar walba waa uu ku farxaa waa uu ku dhiirigeliyaa mar walba waxa uu jecel yahay in uu ku dhiirigeliyo isla markaana horumar aad gaartid number 4 waa uu ka fikiraa markii aadan la joogin waxa uu jecel yahay in aad la joogtid had iyo jeer isla markaana markii aad ka maqan tahay waa uu ka walwalaa uu ka fikiraa mar walba maskaxdiisa waxa ku jira adiga number 5 waxa uu jecel yahay mar walba inuu kula joogo ajoogaaga ayuu xiiseeyaa mar walba waxa uu jecel yahay in aad la joogto isla markaana waqti wada qaadataan halka markii aad ka tagto uu dareemayo ciriiri number 6 waa uu kuwaaniyaa mar walba waayo waxa uu jecel yahay horumarkaaga iyo guushaada waxa uu ku siiyaa talooyin aad u fiican isagoo raba in aad ku guuleysato hadafyada fiican aad adduunka ka leedahay sidoo kale waxa uu ka waaniyaa xumaanta iyo waxyaabaha ka soo horjeeda horumarkaaga iyo waxyaabaha gabi ahaanba aanan u fiicnayn noloshaada number 8 waxa uu xifdiyaa arrimahaaga qaaska ah qofka ku jecel waxaad ku garan kartaa waxa uu xifdinayaa maalmahaaga qaaska ku ah sida dhalashadaada iyo maalmaha kale qaaska ku ah qofka ku jecel waxa uu aad u daneeyaa in uu ogaado waxyaabaha adiga qaaska ku ah number 9 qofka ku jecel waxa uu ku barayaa qoyskiisa tani waa tilaabo aad u weyn taa oo aad ku garan karto qofka ku jecel waxaad ku dareemi karaysaa waxa uu ku barayaa qayb ka mid ah qoyskiisa sida walaalihiisa ama waalidkiisa
taa oo ka dhigan in uu kugu qabo kalsooni aad u weyn. Number 10 waa uu ku daryeelaa. maaha qof walba ku daryeela in uu ku jecel yahay. hadda kama hadlayno jacaylka waalidka iyo walaalaha. tani waa astaan qofka ku jecel aad ku dareemi karto. marka uu maqlo xanuunkaaga waa uu ku soo booqanayaa ama waa uu kula soo xiriirayaa, taa oo isaga oga dhigan in uu dhibsanayo xanuunkaaga. mar walba waxa uu jecel yahay farxadaada iyo caafimaadkaaga. Number 11 waxa uu ku weydiinayaa maalintaada. qofka ku jecel hadduu uu ka maqnaa maalintaas waxa uu ku weydiin doonaa maalintaas waxa aad qabatay iyo howlaha qaadka kuwa aad qabatay. waxa uu jeclaan doonaa in aad oga sheekayso maalin kasta waxa aad qabatay. Number 12 waxa uu ku weydiin doonaa talooyin. waxa uu ku weydiisan doonaa talooyin ku saabsan waxyaabaha qaarkood oo asaga qaas ku ah. wuuna og yahay in aad siin doonto talo fiican, taasina waxay muujinaysaa kalsooni weyn oo qofkaas uu kugu qabo. Number 13 xiiseynta la kulankaaga. waxa uu jecel yahay mar walba la kulankaaga iyo ag joogaaga. kumana sheegan karo jacaylkiisa, isla markaana waxa uu xiise qaas ah u qabaa in uu mar walba agtaada joogo. Number 14 waxa uu ixtiraamaa fikirkaaga. waa wax caadi ah in aad qof la muranto ama inaad is-afgaran weysaan. si kastaba ha ahaatee, qofka ku jecel marnaba ma ogolaan doono in uu murankiina sii dheeraado, isagoo kugu raacaya fikirkaaga. taasina waxa uu uga soo horjeedaa murankiina iyo khilaaf idin soo dhaxgali kara. mar walba waxa uu jecel yahay in aad si kalsooni leh aad u sheekaysataan, murankana waa uu ka soo horjeedaa. asxaabta qiimaha badan, halka ayaan kusoo koobayaa maanta muuqaalkeena. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe inoo saar, muuqaalkana u share galay asxaabtaada si ay u noqdaan ku taxanayaal ku xiran fiidiyoyaasha aan soo dhigno channelkan. waadna mahadsan. wixii fikir iyo faalaha iyo dhiirigelinba inoogu reeb qaybta hoose commentiska.